بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد waxaan u taaganahay oo ku soo dhaweyneynaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso loo yaqaano oo runtii ay sugayaan dad badan oo Soomaaliya oo reer UK waxaana soo dhaweyntaan runtii soo qaban qaabiyay oo si aad iyo aad u qiimo badan u qaban qaabiyay xafiiska jaaliyada Soomaaliyeed ee UK oo gudoomiyaha ka yahay Cabdiqaadir Dhuub anigana runtii waa dad garanaysan oo malaynaya waa Cabdi Cumar oo ah afayeenka xafiiska jaaliyada ee UK laga furay ee uu furay wasiirka jaaliyadu muddo ka hor shaqooyinka uu qabanaya ayay ka mid tahay inuu si fiican u soo dhaweeyo wasiirada halkan imanaya wasiir kasta oo yimaadana insha Allah sidan ayaan ugu soo dhaweyn doonaa magaalada London aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan wax ka soo dhaweyno wasiirkii warfaafinta oo xaqiiqdii kana soo jeeda jaaliyada UK ku nool London oo ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waxaana leenahay soo dhawow dalkaagii dadkaaga gaar ahaan waa deegaankii laga soo doortay oo adiga laga sharaxan leenahay hadii la idmo marka ku soo dhawaan leenahay maaragtaa wasiirka waana soo dhaweynaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa maalin aad qiimo badan waxaana maanta halkan isugu nimid inaan soo dhaweyno wasiirka warfaafinta injineer Yariso anigoo ah Maxamed Cali Diini oo kamid ah ragga maanta yimid oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee Edmonton waxaana wakiil ka ahay dhammaan dadka Edmonton degan waana soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay assalaamu calaykum waraxmatullaah بسم الله الرحمن الرحيم شرف وين بقيتها إن ما أنت معرفتي مقالة لندن Somali community ku soo dhaweeyaan runtii marka hore aad iyo aad kaga mahadcelinaya soo dhaweynta waqtigiina qaaliga ah aniga sharaf weyn bay ii tahay halkan waxaan u nimid laba arrimood waa mid oo in Soomaalida jaaliyadii aan ka tagay iyo arrimaha wadanka iyo dawladda inaan u sharaxno kadibna wax xalaal wixii la wada qaban karo la wada qabto hal maaragtay wadankii iyo qarankii la wada adeego iyo tan kale inaan caalamkii bal ka dhaadhicino arrimaha Soomaaliya maanta marxaladda ay marayaan ayagana maaragtay aan ka rajaynayno inay dadaal fara badan ee dhankaas ka geysan doonaan mar kale aad iyo aad kaga mahadcelinaa intiina halkan igu timid iyo dhammaan Soomaalida degan UK mahadsanidin waxaan runtii halkan ku soo dhaweynay maanta wasiirka warfaafinta waxaana si weyn maaragtay u soo qaban qaabiyay xafiiska jaaliyada ee UK Cabdiraxmaan Yariso aad u mahadsan yahay sida uu noogu mahad celiyay haddana waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha jaaliyada UK oo laba kalmad ka yiraahdo waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ku soo dhaweyno wasiirkii warfaafinta Yariso farxad weyn bay inoo tahay inaan caawa xafiiskeena shaqooyinkii ugu horeeyay oo soo dhaweynteed oo dawladda aan halkan ugu nimid waa mahadsan yihiin dadka dhan